waa xafladda arooska Shukri. Xafladan waxay ka dhacaysaa magaalada Kismaayo, nabaaxiga Quraca Looska. Waxaana la isku guurinayaa laba qof oo wada dhashay ilma adeera ah. Micnihii laba walaalo caruurtay dhaleen ayaa la isku guurinayaa. Sidaan wada ognahay anaga daan Soomaalinahay, inta badan waxaan aaminsanahay guurka dhalashada ah barbaleem in uu wato. Dumarka qaarne aad bay aga baqaan, qaarkooda waa lagu dhibaatooyin ayay kala kulmaan. Muhiimadeeda ma ahan guurka dhalashada inuu yahay guur xun. Adiga waxaad ka aaminsan tahay fikirkaaga waa noo muhiim. Qaybta commentiga waad igala wadaagi kartaa. Muuqaalkan uguma talagelin hees iyo waxyaabahaas in aan dul saaro. Muhiimadeena aan u soo laabano. Guurka dhalashada horta waa guur aad iyo aad u wanaagsan waaye. Haddii labada qoys ay isfahmaan, labada lamaana is doortay ama la isku guuriyay, haddii dhaxdooda shaqaaqa ama khilaaf uu ka dhashanay, familka si wada jir ah haday ugu hortagaan, guurkaas wuxuu noqonayaa guur lagu liibaanay. Balse hadday noqoto wiilkeygii ayaa fiican ama gabadheedii ayaa fiican, meesha waxaa ka imaanayo khilaaf keeni karo reerkaas in uu burburo. Xafladan sidan u quruxda badan, mooskan, cambahan, gashaatadan, doorshadan, buskudkan, nacnacaan aad u jeedo horta dadka qaar ma yaqaanaan cambaha ama mooska qaabka loo beero, balse waxay yaqaanaan qaabka loo cuno. Muuqaalkan waxaa u sheer garaysaa dadka yaqaano cambaha sida loo beero. Adigana haddaadan aqoonin faa'iido ayay kuu tahay. Kolay cambaha sida loo cunaa taqaanaaye daawo. Geedkan idin muuqdo waa tufaax. Baalkaana waa huruudkii loogu talgalay in gabadha loo mariyo. Sheekada meeshaan taagan waxay tahay shaxdan oo huruud mariska ah ama xafladda ah yaa noo keenay, fuustadan yaa nagu soo riixay. Anaa idinla wadaagayo. Dadka qaar way ogyihiin horta fuustadan Hindiya noo keentay. Waayo Hindida ayaga ayaa sameeyo nashqadan oo macni huruud mariska aroosyadooda. Waxyaabo badan waxaa jiro Hindida ay sameeyaan, balse anaga daan Soomaalinahay midaas ma sameyno. Tusaale dhanka guurka markii laga hadlo, gabadha ayada ayaa ninka doonanayso, soorida familka ayaa dhiibayo. Aabooyinka Hindida waxay ka murugaan markay u joogto gabar qaangaar ah, gabadhaas siday u guurin lahaayeen, hantida ay ku bixin lahaayeen. Aabihii asagaa wa shaqeynayaba, soo maahan. Wiilkane aabaha asaga ayaa doonayo. Meesha anaga gabdhaha intaan ka doonano yarad, buntuugmo, bundig, heblow waxyaabahaas anaga aan ka geyno, balse Hindida ayagaa u bixinayo. Hindi la iska tagaa wayde. Siday ahaataba anaga hadda gabdhahayna waxay keeneen inay ayagana ay ku daydaan Hindidaas. Gabar waliba waxay jeceshahay xaflad in loo dhigo, ama gabar ha ahaato, ama garoob ha ahaato, ama waayil ha ahaato, ama duq ha ahaato. Gabar waliba ama dumar waliba waxay jeceshahay xaflad huruud maris in loo dhigo. Ilaan dumarka wax waliba iskaga maseeraan Soomaan in loo dhigo. Haddii maanta gabadha gurigeeda aad u dhigto 2 xabada ama shumac, xitaa jiif aadan u dhigin ama dahab aadan u gadin, waxay ku qanacsan tahay huruud mariskan oo gabdhaha dhanta isku imaadaan, qofba daankaas in uu u mariyo huruud ama toortada in la jaro. Gabadhan haddii idin muuqato waa gabadha walaasheeda ka weyn waaye, maasha Allah. Siday ahaataba looma kala harin arooskan. Gabadha walaalaheeda joogo oo aniga aan ka mid ahay. Marka waxaan aad iyo aad u jeclahay codkeyga iyo fikirkeyga in aan idinla wadaago, aan idin soo gudbiyo. Idinkana asxaabteeda tihiin in aad igu taageertaan. Wixii adiga fikirkaaga ah ama talo ama tusaalooyin ah waad igala wadaagi kartaa qaybta commentiga. Maasha Allah. Gabdhahani waad u jeedaan waxay rabaan inay iska dhigaan ama inay iska bareejayaan Hindida ficilada ay sameynayaan oo kale. Laakiin anaga midaan xanuunayna u tahay, waayo waxaa jiro dad badan oo guur u baahan, misniya handana aan awoodi karin qarashaadka guurka. Dadkaas in loo danayaa fiicnaan lahayd oo ayaga naftooda marmarka qaar macnihii boogga naxariista loo fiiriyo. Qoftaan hadda idin muuqato oo gabsaarta cadeeska wadatane sidoo kale waa gabadha walaasheeda ka weyn waaye. Kolay Soomaali nashqadan si fiican ay u taqaanaa. Waa ka shumiska meesha ka dhacay fiire.
gabadhii ayadoo ninkeeda loo geenaabo dhidhimisaa lagu dhameeyeyba. Marka gabdhaheeni waa gabdho aad iyo aad u qurux badan, maasha Allah, ilaahay siiyey cize iyo sharaf, way qurux badan yihiin, ma fahantay? Laakiin dadka qaar markii jireer la dhaho waxay u maleeyaan jireer inay tahay wax xun. Bal fiir hadda qoftaan, maasha Allah, waxaa dhihi rabtaa macnihii kaamiradu waay aa dhihi rabtaa, ku ogahay ya, laakiin kaamiradu ma ahan, waa qurux ay u dhasheen waay. Siday ahaataba waxaan rajaynaynaa labadan qof oo walaalaha isku dooray waalidiintooda ilaahay inuu ka dhigo labadii isdhaqan lahaa, isfahmi lahaa. Waalidiintii isku doorayna beri haddii caruurtan dhexdooda uu khilaaf uu ka imaado, ilaahay ha ka dhigo waalidkii khilaafkaas xalin lahaa. Mar waliba nolosha waxay ku fiican tahay labada qof lamaanaha ah dhibaatooyinkooda iyo khilaafkooda ayaga inay xaliyaan. Mar hadday noqoto dhexdiina saddexeeye ama oday inuu soo dhexgalo, mar waliba waxay u badan tahay khilaafkiina inuusan marna dhammaanin. Marka waxaan rajeynaa inay noqdaan laba qof oo ayaga isxaliyo. Waa caruur, balse waqti waxay gaari doonaan ay nolosha wax badan ay ka fahmi doonaan. Waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Asxaabteyda igu qaaliga, muuqaalkan hadduu idiin soo gaaro meel dheer gaarsiiya.